assalaamu calaykum. waa qiso dhab ah oo ku saabsan qaabkii loo dilay wariye John iyo Martina. qayb ka mid ah qisadan waxa ay ka hadlaysaa arrimaha sirdoonka iyo sida loo abaabulo shirqoollada caalamiga ah ee dhacaya. waxa qaybta dambena ay ka hadlaysaa qisadan dhabta ah, hanaanka loo marayo dilka loo geysanayo labadan ruux. waxaan filayaa dad badan oo daneeya arrimaha sirdoonka inay halkan ay ka ogaan doonaan qish yar oo la xiriira sida loo abaabulo dilalka qorshaysan iyo sida la isaga ilaaliyo hay-adaha sirdoonka. sidee loo dilay John iyo Martina? ma Soomaaliya? maya. ma Afrika? maya. waxaan mooday inaan filim daawanayo mase ahayn oo waa dhacdo si run ah u dhacday. waa mid ka mid a shirqoollada ugu farsamada badan ee dunida ka dhaca. wakhti dheerna kama aysan soo wareegan ee 12 bilood ka hor ayay qisadan dhacday. sheekada oo dhan waxay ka bilaabatay heshiis lacageed oo qiimo gal ah oo gaaraya 50,000 oo euro oo kaash ah iyo 20,000 oo kale oo deyn cafis ah, taas oo lagu bedelanayo dilka hal nin oo keliya oo dunida laga dirayo. wax kastaana halkaas ayay ku dhammaan doonaan. waa bishii Febraayo sanadkii 2018 dalka Slovakia. suldaan Androsko oo ah nin ka shaqeeya dukaan biisaha lagu iibay ayaa aqbalay go'aan taariikhda dalkiisa iyo noloshiisa dhan bedelay. goor galab ah ayaa Elena Zazusova oo ah haweeney Talyaani ah oo afnaqe ama tarjubaan ahayd una shaqaynaysa taajir Talyaani ah waxay ugu yeertay gurigeeda. meel bannaanka ka ah daaradda aqalka baabuurka u yaallay ayay ku dhex faqeen ama ay ku shireen muddo kooban. waxaa la dejiyey qorshe u muuqda mid adag, hase yeeshee muhiim u ah ninka ay Elena u shaqayso, waana Marian Cogner. Zoldan Androsko oo ninkii biisada iibinaya ahaa waxaa loo dhiibay hal waajib oo ay tahay inuu gar iyo gardarraba uu soo fuliyo, waana inuu dilo John Kokayk oo ahaa wariye baara ah oo wax ku qora jariiradda Actuality. waxaa Zoldan gacanta loo saaray dhowr sawir, magaca qofka hadafka ah iyo barta uu ku nool yahay. Zoldan weligii waxba ma uusan dilin, shaqadan loo doortayna uma fududa, xitaa ma yaqaan sida qoriga loo rido. waa daadhexaad ay bidaartu ka jeexan tahay, calool yara kuusanna ay u dheer tahay. wax aan ganacsi ahayna kama uusan shaqayn jirin. mar dambe oo la waraystayna waxa uu sheegay inaanu doonaynin inuu wax dilo, waayo maba uusan aqoonin sida wax loo dilo. muxuu falay? Zoldan waxay tale ka tustay inuu doonto cid kale oo howlgalkan halista badan la fulisa. wuxuu helay saaxiib ay isku dhowaayeen, waana Thomas Sawabo. Thomas wuxuu ka mid ahaan jiray ciidankii booliiska, haddase waa uu ka tegey. qaab dhismeedka jirkiisa ayaa xitaa u saamaxayay in loo kiraysto shaqooyinka sidan oo kale ah ee aadka u dhibka badan. intuu dheer yahay ayuu haddana murqo waaweyn dhistay sidii jilayaasha filimada Hollywoodka. waxaana ay xarragadu ay gaarsiisay taatuu inuu qadaadka iyo garbaha oo dhan u isaga xardho. Thomas nin naxdin yaqaan ah ma ahan, wejigiisana waxaa keliya aad ku aqoonsan kartaa ballarka lafta qalka ama daanka ah iyo madaxiisa wada dhukuran ama xiiran. Thomas Sasabo wuxuu ku wanaagsan yahay adeegsiga hubka, waxaase u sii dheer inuu howlgalkan lacagta leh uu doonayo. Zoldan oo ah ninka qandaraaska qaatay ee biidsaha iibinayay waxa u muuqatay inuu qof saddexaad u baahan yahay, waxaana uu qorshaha uu ku soo daray in adeerkiis Marislav Marsek. Marislav sida Thomas oo kale waa askari hore oo weli dhisan, yaqaanana isticmaalka hubka iyo baabuur kaxaynta oo muhiim u ah mu'aamaradan. kooxdu waa diyaar. dil kasta oo shirqool ah wuxuu u baahan yahay sahan iyo xuuraansi si loo helo fursadda ugu wanaagsan. kooxdan saddexda nin ka kooban waxa ay bilaabeen safar wardoon ah oo ka dhan ah dhibanaha la beegsanayo. waxay toos u aadeen hoyga ay ku nool yihiin wariye John iyo saaxiibtiis Martina. labadoodu waa qabar moog aan cidnada kana ka gelin, noloshooda caadiga ahaana iska wata. wariye John iyo saaxiibtiis Martina waxay ku nool yihiin meel 60 kiiloomitir u jirta halka kooxda saddexda nin ee shirqoolka wada ay ka yimaanayaan oo ah caasimadda dalkaasi Bratislava. ugu yaraan 7 jeer ayayna kooxdan booqasho qarsoodi ay ku tageen xaafadda ay degan yihiin wariye John iyo saaxiibtiis. xogtan waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay baaritaan lagu daabacay barta ka xog waranta dambiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo OCCRB oo wariyuhu qayb ahaan uu la shaqayn jiray. shirqool kasta wuxuu u baahan yahay xog iyo xooraansi ka horreeya fulintiisa. caddaymaha booliiska ay heleen ee lagu dhisay su'aalaha baarista ayaa muujinaya sida kooxda dilka fulisay ee isha uga hayeen dhaqdhaqaaqa lamaanaha wariye John iyo saaxiibtiis Martina. kooxdu waa diyaar.
waxa u muuqda qiimo lacageed qaali ah oo gaaraya 50,000 oo euro oo kaash ah iyo 20,000 oo kale, laakiin ku xihan nolosha hal ruux oo dunida laga dirayo. wiilkii dukaanka biizaha joogay ee Zoldan Androsko ayaa waxaan oo dhan falkinaya. intii u dhaxaysay 5 ilaa 19 Febraayo waxay kooxda dilka booqdeen hoyga lamaanuhu ay deganaayeen ilaa 7 jeer. ujeedku wuxuu ahaa inay ogaadaan arrimo muhiim u ah falka ay geysan rabaan, taas oo qayb ka tahay goorta ay soo laabtaan labada ruux, cidda kale ee la degan, sida ay u baxaan subaxdii iyo sida ay ku soo laabtaan habeenkii iyo dhammaan dhaqdhaqaaqa agagaarka deegaankaas. taasina waa xuuraansi dhanka sirdoonka ah. shaqada waxaa loo xil saaray Szabo iyo Marzek oo ah labada ruux ee horey ciidanka u ahaan jiray dibna kaga soo biiray sheekada, si ay ugu koorgalaan xaalka goobta ay dilka ka fulinayaan ee wariyaha iyo saaxiibtiis. waxay ku fekereen halka ay baabuurkooda dhigan doonaan marka dilka la fuliyo, siday u baxsan karaan iyo waxyaabaha la midka ah. ma jirin wax kaamirooyin qarsoon ah oo ku xidhan agagaarka goobta ay falka ka geysan rabaan, taasina waa ay farxad gelisay. toddobaadkii xigay ayay soo laabteen iyaga oo iska soo beddelay baabuurkii hore. markan waxaa u soo baxday caqabad aanay hore u dareemin: aaladda isgaarsiinta. kooxda shirqoolka waxay isweydiiyeen sidii iyaga ay ku wada xidhiiri lahaayeen, iyaga oo aan wax raad ah uusan uga tegin taleefannada ay isticmaalayaan. waana arrin adag. waxay ku tashadeen in qofba qofka kale uu taleefankiisa u baaqo ama message call, iyada oo aan laga jawaabinna wicitaanada la jaro. micnuhu waxa uu yahay in afgarasho uu baaqa uu u noqdo. maya macquul ma ahan. waxa soo baxday talo kale. haddii loo baahdo baaritaan, waxay tiknoolajiyadda ay sahli kartaa in la raaco raadka teleefoonka goobtii daqiiqad kastaa uu joogay ama lagu isticmaalayay. markan kooxdu waxay goosatay in la soo iibiyo teleefoon qiimihiisu jaban yahay oo lagu magacaabo Partner Phone, kaasoo la iska tuuri doono isticmaalka kadib, sahlina kara inuu raad tiro barta aqoonsiga ama IP-ga teleefoonnada. ma sahlana in telefoon iyo simikaar la iska iibsado aqoonsi la'aan. kooxduna ma doonayso in la aqoonsado. waxaa la helay ruux dhexe oo middleman la yidhaahdo oo 2 teleefoon suuqa uga soo iibiya. qorshaha xiga wuxuu ahaa diyaarinta hubka loo adeegsan kara dilka. Szabo iyo Marzek waxa ay qaybsadeen shaqadii. ninna baabuurka ninna dilka ayaa lagu ballamay. waxaana la diyaariyey bastoolad nooca Lugerka la yidhaahdo oo cabirkeedu uu yahay 9 milimitir oo wadata aaladda aamusisa shaqarta rasaasta. labada lamaane waxa ay ku nool yihiin degmada Velka Maka oo 60 kilomitir u jirta caasimadda Slovakia. waa deegaan xasiloon oo dhinaca ku haya keen weyn oo cagaaran. Jan iyo Martina dhowaan ayay guri ka iibsadeen halkan. muhiimad gaara ayayna u leedahay labadooda. waa halkii ay rabaan inay ku aqalgalaan. guriga goobta uu ku yaallo wax xoogaa ayuu ka baxsan yahay faras magaalaha. buuq iyo sawaxanna kama jiro. jidyaraha ka weecma waddada weyn ayaa toos u gala aqalkooda. waana meel ku habboon nasasho iyo jacayl. Jan iyo Martina labadoodu waa isku da' oo 27 sano jir ah, isku deegaanna ku soo koray. xiriirka jacayl waxaa u dheer inay waxbarasho isku meel ay ku soo wada qaateen, aadna isu yaqaanaan. qoyska gabadha ayaa sanad ka hor aqbalay bandhigga guurka, keliyana waxaa la sugayaa xafladda arooska oo la shaaciyo. lamaanaha midkoodna xitaa kuma uusan fikirin in cid kale ay ku daba jirto. waa masaakiin danahooda adduunyo ku mashquulsan. mashquulka shaqada waxaa u dheer kan loogu diyaargaroobaya arooskooda oo la qorsheeyay bisha May 2018. habeenkii dilka 4:40 galabnimo ama 11 saac oo 20 dhiman 21 Febraayo. Szabo iyo Marzek iyaga oo diyaar ah hubkoodana sita ayay u dhaqaaqeen xagga iyo Velka Meka oo ah xaafadii ay deganaayeen wariye Jan iyo Martina. waxay ka xeesteen baabuur nooca Berlingaha ah. qorshahan wuxuu u muuqday mid isku toosan. waxay u gooyeen goobaha magaalka dhexdiisa ah ee laga aqoonsan karo. waxay damiyeen taleefanadooda gaarka ah iyaga oo shitay taleefanadii howlgalka ah ee Partneriska ahaa. 6:28 daqiiqo oo maqribnimadii ah waxaa baabuurkii lagu damiyey garoon kubadda cagta ah oo bannaanka ku yaala. Marzek baabuurkii ayuu la sii joogi doonaa, halka Szabo oo tababar fiican ku haysta dhanka hubka loo xushay inuu toogto wariyaha iyo xaaskiisa. wuxuu u dhaqaaqay guriga lamaanaha 6:30 daqiiqo ama nus saac oo habeennimo. nasiib darro, cidinama aysan joogin guriga oo galabtaasi Jan iyo Martina waa ay soo raageen ama ay soo daaheen. Jan wuxuu ku daahay shaqo maalmeedkiisii. markuu soo bixi lahaana waxaa ka dambeelay batariga gaarigiisa. wuxuu ku qasbanaaday inuu tareen soo raaco si uu magaalada u yimaado.
waxaana uu martiina ka codsaday inay boosteejada Bratislava ay baabuurkeeda kaga soo qaado marka uu soo gaaro. habeenkaas guriga lama imaan ilaa 7:30 daqiiqo ama 1 saac iyo bar. Jan iyo Martina waxay hooygooda ay soo gaareen daqiiqada ka bacdi 7:30 daqiiqo. markiiba waxay galeen casho iyo shaah diyaaris. Martina waxay joogtaa jikada, waxay telefoon ay kula hadlaysaa hooyadeed oo ay wacday. ninkii Zazaaba ahaa meel guriga dhinaciisa ayuu ku gambanaa. Jan iyo Martina dhaqan uma aysan lahayn inay albaabka kore iska xidhaan ilaa laga gaaro 8:21 daqiiqo. Zazabo oo bistooladiisii ay dhaansan tahay gacantana ku sita ayaa dayrka guriga soo galay, toos ayuuna u abbaaray guriga gudihiisa. albaabka laga soo galo guriga waxaa soo xiga jikada oo Martina ay joogto oo shaaxii dabka u saaran yahay oo ay ku jirto. Zazaabana waxba kama uusan labalabeen ee hal xabo ayuu labada indhood meel u dhaxaysa kaga hubsaday Martina. halkaas ayayna ku quurbaxday. Jan oo qaybta hoose ku sugnaa ayaa maqlay shanqarta rasaasta, mase uusan sii hubin waxa ay tahay. intuu booday ayuu dhankii jikada u cararay. waxaase ka sukaya Zazaabo oo diyaar ahaa. 2 xabadood ayuuna kala helay barta feeraha ah oo ku beegan wadnaha dushiisa. Jan oo nafta la haaraya ayaa gedi ugu dhacay jaranjarada hoosteeda. Zazaabo ayaa mar kale u dhowaaday wariye Jan, wuxuuna si fiirsasho ah uu ugu celceliyey 3 xabadood oo kale ilaa uu goobta uu ku dhinto. Martina hooyadeed oo la yaabtay kana naxday telefoonkii ay kula hadlaysay gabadheeda ee kala go'ay ayaa dib ugu soo celisay, cidna uma aysan jawaabin. Zazaabo howshiisii waa uu qabsaday, waxaana uu ka baxay xagga dambe ee guriga, wuxuuna la baxay baanarkii. kadibna waxa uu wacay saaxiibkii Marsek oo abbaaro 8:25 daqiiqo u yimid 4 daqiiqo kadib. sidaas ayayna ku baxsadeen labada dilaa. waxaan filayaa inaad wax badan ka kororsateen qaabkii abaabulka shirqoolkan ee cajiibka ahaa. waxaa tarjumay Cabdalla Axmed Muumin. waan kaga mahadcelinayaa daawashada iyo la socodka muuqaaladan halkan ku soo bandhigo. muuqaalkeenna maantana halkaa ha inoo joogo.